boqolkiiba 9 ayay Soomaaliland dhaqankeedu isbedelay oo isku bedelay wanaag midkii boqolaad waan idin soo jeediyay waanadiisii waxay hortaala 9 wanaag ee Soomaaliland gaadhay dhaqankeedii hore bedelay 9 kaasi waa dhaqan cusub in aan ka jawaabo ay hortaala waagaag maxaan leeyahay markaan leeyahay dagaalku dhaqanka uu bedelaa anigu idinma liyo wax adduunyada ka dhacay oo la og yahay adduunka waxa ka dhacay dagaalka la yiraahdo dagaalkii labaad baa ka dhacay adduunyada wuxuu gaadhay adduunka oo dhan dagaalka waxa hogaaminayay 11 nin 11 kan waxay ahaayeen saddex isku dhan bay ahaayeen oo waxay ahaayeen Jarmal iyo Japan iyo Talyaani 8 isku dhan bay ahayd waxay ahaayeen Mareykan iyo Ingiriis iyo Faransiis iyo Shiinihii hore ee Farmowsa ee boqortooyada iyo Ruush iyo Ethiopia oo Haile Selassie boqor Haile Selassie Isbaaniya iyo Belgium kolka sideedaasi waxay ahaayeen sideedii guuleystay Afrika waxay ku lahayd 11 kan dagaalka adduunka hogaaminayay ee saddex iyaga laga guuleystay saddexda laga guuleystay marka laga baxo 8 baa soo haray 8 nin Afrika waxay ku lahayd boqor Haile Selassie 8 dagaalku wuxuu istaagay 44kii 8 waxa la sameeyay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa 8 fiit ay qaadatay saddexdii kalena waxa weeyaan Isbaaniya Belgium iyo Ethiopia jamciyadda qurumaha ka dhaxaysana 8daas ay ahayd dagaalkii waxa ka dambeysay marka la joogo 1971 markay ahayd dagaalka waxa ka soo wareegay 26 sanadood horumarka dagaalku uu bedelo wala laga helo dagaalka ee uu dhaqanka bedelo waxa ka marxaati noqonaya iyadoo dagaalkii 26 sanadood laga joogo qoriga kaliya lagu dagaalamay nimankii guuleystay dayaxa ayay ku dhaadhaceen 22 sanadood dhexdood waxa u dhaxeeya faraq weyn halkay taagnaayeen dagaalku markuu istaagay 44kii iyo markay dayaxa ku dhaadhaceen 17kii 1917kii Apollo 11 markuu Mareykanku ku dhaadhiciyay dayaxa ee uu calankiisa ka taagay dayaxa iyo maalintii dagaalku joogsaday waxa u dhaxaysay 26 sanadood horumarka intaa leeg waxay ku gaadheen dagaalkii ay galeen dhaqankoodii isbedelay iyo hawshii ay galeen mahmaada waxa ii geeyay inaga waxaynoo taala tu kaloo taala mid ah inagu Ingiriisku wuxuu nala joogay 150 sanadood 30 sanadoodna waxaanu ka mid ahayn dawladda Soomaalida waa 180 dalka maalinta aynu soo galay adduunyada inala daada ragga qayrkeena ee dawladaha inala daada 60kii calanka inala qaatay waxaynu ka dambeynay 180 sanadood waayo waxaynu soo noqonay dhulkeenii oo aan waxba oolin wax ku noolina aanu jirin intan dadkan yimidna kuwii soo galay yihiin dhulkiina la burburiyay waxbana aynan haysan horumarda iyo waxba ma haysano kolka waxay ku tusaysaa adduunyada maxaynu ka dambeynay 180 sanadood ayaynu nimanka aynu isku daadanahay ka dambeynay markaynu marayna haddaba 27 sanadood 28 sanadood ka soo qaad markaynu marayno
labaatankii sanadood waxaynu soo goynay masaafadii boqolka sanadood waxaynu ku soo gaadhnay labaatankii sanadood 80 sanadoodna waxaynu ku soo gaadhnay 8 sanadood ka dambeeyay waxa muuqata maanta dalalkooda iyo kuweenu inay isu eg yihiin waliba kuwa dhaqaalahoodu wanaagsan yahay oo aynu kala mid nahay xagga tacliinta iyo madaariska farahooda xagga dawladaha islaamka aynu masaajidadeena oo kale ay aad u yar yihiin wadanada qaarkood inay leeyihiin waxaynu kala mid nahay xagga dhismaha waxaynu kala mid nahay xagga baabuurta wadanka ka socota waxaynu kala mid nahay si walba waynu xagga baaca mushtariga xagga baananka xagga hodheelada xagga dhakhtarada wax walba kala mid baynu nahay haddayna wax dheerayn taa waxaa raacday tu kale oo adduunyada aan cidiba lahayn 3 dawladood baa litaa waxaa la yidhaha magaca dimuqraadiga adduunyada 3 dawladood baa leh maraykan ingiriis iyo faransiis faransiisku waa wanka waa kow ingiriiskuna maraykankuna waa ka labaad ingiriiska waxaa la yidhi qortooyadu weli leedahayoo waa ka saddexaad waxaa la isweydiinayaa dimuqraadiyadda lagu kala baxay dimuqraadiyadda lagu qaato inuu waddanku dimuqraadi yahay ee lagu kala socday ee lagu kala baxay waa maxay waxa weeyaan marka waddanku u madax bannaanaado one vote one person codkaa lagu ridaayay ee doorashadu markay xaq u dhacdo ee ninna la caburin ninna la dhicin ayaa la yidhahdaa dimuqraadi innaga laynagama filayn meesha waxaa laynu markaynu soo galay waxaa la yidhi waxba iskaga hadhi maayaan gebigoodaba hubna way haystaan wax kalena ma haystaan innaga doorashooyin baa dhacay doorashooyinkeenii dhacay markii ay dhaceen lama murmaayo iyagaa akhriyaya nimanka reer yurub iyo adduunkaa wax akhriyaya waxay idhaahdeen weli kamay dhicin saddexdeena mooyaane doorashooyinkaasi adduunyada meella iyo madax bannaanida intaa leeg way sii socotay waxaa yimid in ay yidhaahdaan waxaad tihiin qolada afraad waa la wada hadlay inagoon inagii hadal ma aha baa la yidhi waxaa la yidhi maxay yihiin qolada koowaad baa la yidhi oo maxaa dhacay waxaa la yidhi maraykanoo waxaad ku hadhee ceebtii waitergate iyo tii filoria ee labaduba doorashada ay xumaatay ayaad ku hadhay oo adigu martuugii noqon weyd ingiriisna waxaa la yidhi boqortooya sii nool waxaa kaloo maca faransiiskii loo raacay labadii kale haddaba la yidhi 2 xisbee qura leedihiin baa la yidhi maraykanow ingiriisoo dhan 2 xisbee oo qura kow faransiis wuxuu yidhi aniga ninka shaqsigii keligii buu doorashada isu taagayaa madaxweyne ama baarlaman ama dawladda hoose isagoon xisbi ku jirin waa la qancinaya hadduu helo wuu helay hadduu waayana wuu waayey labada u dambeeya ugu sarreeya ayaa isu soo taaga doorashada labaad dowladdii hore iyo dowladda labaad baa la kala yidhaa labadaasaa kala baxa oo madaxweynenimada kala qaata kolka horena ilaa 20 bay istaagaya ilaa intii istaagi karta way bannaanta iyaga haddana waxaanu kaga badinay xisbiyadan iyaga ay wax ka doortaan iyagaa garamaya inagoo inagu la joogin waxay jireen 200 sanadood 300 sanadood intaasoo 100 sanadood innaga xisbiyadeenna waxaynu soo rognay kolka dawladda hoose ay dawladda hoose la dooranayo in xisbiyadii hore baabaana loo tartamo haddii doorashada laga helo hadday soo baxaanna ay soo baxaan hadday soo bixi waayaana sidii dhacday oo madaxweynuhu ogolaado oo isagu soo jeediyo xisbigiisa inuu soo baxayo inuu soo bixi waayo ay iyaga ku xidhan tahay doorashada iyo shicibka raaca sidii udub oo kale xisbigii dawladdu ahaa soomaanuu bixin dibna looma arag waa maxay dadkii baa loo ogolaanayaa madaxoodu waxa uu doonayo hadday xisbiyada necab yihiin inay kuwa kala doortaan
innaga maxaa waxaa hadlaya iyaga reer yurub ayaa qaadaa dhigaya waxan waxay garteen inaynu wanka nahay markii loo eegay halkaynu ka soo jeedno waa taaga oo afrika taasi waxaan haddaba markhaati uga dhigay yani matalan waxaan idinku yidhi 180 sanadood 28 sanadood baynu ku dhammaynay waxaan ugu mahmaahay dagaalkii labaad wuxuu markuu istaagay iyo markay dayaxa fuuleen 26 sanadood baa u dhexeeyey yani dagaalka markuu dhacay qoy bay ku dagaalamayeen 26 sanadood dabadeedna dayaxa istaageen dagaalku haddaba waxa weeyaan dhaqankaas u bedelaa hore markaa dheeranaya speedka dheer leh ayuu leeyahay waxa weeyaan alxamdulilaahi rabbil caalamiin dadku waxaan taas waanada warkaa u soo jeediyay qisadaasi inaynu madaxa ku hayno mowqifkeenna guud ahaaneed halku marayo oo aydan qaadan inaad meel hoose joogtaan oo ogaataan waxa idinka maqan inay ku maqan yihiin waxaan waxba idinka danayn waxba idinka baahnayn aydan waxba uga baahnayn waayo waxa weeye mowqifkaaga guud ahaaneed ee caalamiga ah ayaa halkaa taagan qaar baa lagu yidhi laydinma ictiraafin warba ma inaan ku idhaahno inay la ictiraafay iyo in kale wasay yidhahdeen waayo dee waxba ugama baahnin baanu adduunyada oo waayo dee waxaanu doonnaba waanu ka helnaa waxaanu ka iibaynay waanu ka iibinaa waxaanu ka iibsanayna waanu ka iibinaa kharashkii safaaradaha faraha badnaa oo naga maqan baan ku idhi halkaanu doonayna inaanu tagnana waanu tagnaa waxa weeye dhaqanku wuu bedelaa dhaqanka dagaalku ama horumar buu keenaa horumarka wuxuu u keenaa dadkii dulmanaa haddii laba dawladood islaayaan tii gal darayd baa ku burburtaa waayo halkanba 3 baa ku burburay dagaalkii labaad ee adduunyada moogta inkastoo markii dambe dhaqaalaha iyagana ay xagga dhaqaalaha ka kaceen way kor u baxeen kolkaa waxa weeye hadalkaygii anigoo aada idintoo salaamaya mar labaad waxaan ku soo gebangabeynayaa sheekadu waa taas sidaa ay tahay waan idinku sheegay waadaxa laakiin halkii aan horreysiiyey ee saxadeenna ku saabsanayd in laysaga yimaado oo dadku ka sheekaysto oo laga fikiro oo dadka Soomaaliland caloosha waxa kaga jira uu yahay waxa aan tilmaamay anigu in la hubsado sidaa loo eego ayaa meesha taala hadalkayna halka ayaan ku soo gabaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu